soo dhawaada maanta waxaan rabaa arrin xasaasi ah inaan ka hadlo oo maaragtay waxa waaye qowleysato caadi ah timid iska ilaaliya yaana idin dhihin taakulaa la wadaa waxaana la sameynayaa ma jirto waa been kaloo jirtay dhalinyaro badan oo ila soo xiriiray shirkadooyin badan oo ila soo xiriireen oo rabaan inaan ka qayb qaato gurmadka loo fidinayo walaalaha beledweyne oo dhibaatada iyo maaragtay musiibada ay ku dhacdo maaragtay ilaahay amarkiisa ah biyaha ku soo fatahay webiga marka waa ka qayb qaadan lahaa ana xataa waana soo dhigi lahaa account-nada wax loogu ururinayo dadka masaakiinta laakiin waxaan ka cabsaday in maaragtay lagu daba gambado oo dad kaleeto ay account-no saas camal ay yiraahdaan wax ku soo dira oo ya wixii dadkii maaragtay masaakiinta ah loo waday dhex ay u galaan oo dad ani iska kay dhigaayo ay saas ay sameeyaan aan ka cabsaday saas li ajligeed page-kayga kuma aanan soo qorin mana aanan soo qaadanin balse waxaan idinka codsanayaa inaad qaab ku gaarsiin kartid iyo meel alaali meesha aamini kartid aad maaragtay wax u marisid sanadahan dambe tuugaa soo baxday iska ilaaliya waxaa la ii sheegay kuwa dadka weydiisanayo taakulada beledweyne inay account ay sheegayaan in loo mariyo marka aniga ma ihi anigana welina page-kayga kuma soo qorin arrin ku saabsan in la caawiyo walaalaha oo lagu caawiyo lacag ayadoo account lagu diraayo ma soo qorin weli laakiin waxaa soo qoray ha loo duceeyo hana la caawiyo walaalaha reer beledweyne 2 jeer soo qoray sawir ayagoo ah marka waa kaasa kan saxda ah kaas ya been la idin sheegin ciwaanada kale iska daaya dad masaakiina oo ilaahay maaragtay xaalkooda og yahay oo in la caawiyo u baahan wax in la siiyo u baahan waxoodii waxay heli lahaayeen ummadda dhexda loo galaa waxa la leeyahay account-kan ku dira saan wax yeela inta wax sameeya waxaas ani ma ii waa been shirkado waaweyn hadda magacooda ma sheegay shirkado waaweyn TV waaweyn ay la soo xiriiray waxayna dhaheen ka qayb qaado waa wax fiican ka qayb qaato gurmadka laakiin waa la igu gambanaa aniga soo ma fahmin dad baa maaragtay ilaahayo markaan sameeyo saas dadku waxa waaye Soomaalidu waa inta ku garaadla caadi waaye xariifa wuxuu soo qorayahay asxaabta magacayga u sameystay sawirkayga u saaran wuxuu leeyahay in waxa lagu sameeyo taakulo account-kan ha lagu diro account-kii dadkii rabay in dad masaakiin la gaarsiiyo ku diraa faantaadiga marka iska ilaaliya aniga waxaan u diiday in dadka taakuleynayo walaalaha beledweyne in wax sadaan u baahan oo maaragtay inay wax sadaqaystaan rabaan waxay ku xiran yihiin ciwaanada kale oo beenta ah marka ciwaanada kale oo beenta ah waxay ka faa'iideysanayaan waxay leeyihiin wasaas hal ayagan fahmin marka anigu wax dhan ma soo qorin welina ma soo qorin marka hana wax waa arrintaas darteed dad u qaraabanayo beeshiga ayaa jiraan